ma ku hamiyi jirto inaad samaysato website ku gaar ah ma doonaysaa inaad noqoto developer ama web designer waxaan maanta ka caawin doonaa sida ugu fudud aad ku samaysan karto website sidoo kale waxaan ku kala sheegi doonaa labada erey ee ah web developer iyo web designer waxaana ku sheegi doonaa siyaabaha ugu fudud ee lagu noqon doono iyo waxyaabaha aad adeegsanayso sidoo kale mushaharada la qaato anigoo tusaalayaal badan qaadan doona waxaan maanta idin bilaabi doonaa oo kale HTML oo ah albaabka ugu horeeya ee laga geli doono culumtan aan sheegayo taas oo adduunka aad looga baahan yahay dhimaankeeduna aad u ballaaran yahay versionka ugu horeeya HTML soo baxay wuxuu soo baxay 1993 waxaan waqtigaas ugu isticmaalitaan badnaa versionkii la oran jiray 4.01 kaas oo official standard noqday sanadku markuu ahaa 1993 asaasuhu magaciisu waxa weeye Tim Berners-Lee waxaanu create gareeyay website-kii ugu horeeyay sanadku markuu ahaa 1991 August 6 mar haddaan isku afgaranayno HTML-ku yahay albaabka ugu horeeya ee laga galo culumtan waxaan u baahanahay inaan HTML-ka aan siyaabo kala duwan aan u eegno anagoo idin soo bandhigi doonaa qaybihiisa ugu muhiimsan iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee HTML-ka aad u baahantahay inaad ka ogaato waliba luqadeena hooyo sida awgeed HTML markaan dhamayno waxaan sidoo kale geli doonaa CSS JavaScript iyo Bootstrap kuwaasoo kuu saamixi doonaa inaad la jaanqaado adduunkan oo challenge-yada adduunka ka jira aad gasho ama aad ku shaqaysan kartaba si aad doonayso waa maxay HTML waxa weeye wax kala ma aha waa luqad loo yaqaano markup luqadan waxa loo isticmaalaa in lagu dhiso bugaga internetka iyo website-ada HTML waxay u taagan tahay Hypertext Markup Language waa HTML waxa loo soo gaabiyay Hypertext Markup Language luqadda HTML waxay qayaxdaa qaabka loo dhiso website-ka ajandaheedu waxa weeye qaabka loo dhiso website-ka astaamaha HTML-ka waxa loo yaqaanaa tags-kana waxa kamid ah head paragraph iyo title iyo waxyaabo la mid ah waxaas aan soo sheegay oo dhan waan idin sheegi doonaa gadaal ayaan ka wala eegi doonaa sida awgeed head iyo title iyo paragraph waxyaabahaad ku dhex qorto waxaad u baahan tahay kolleyba inaad eegto sida awgeed waxyaabahaad adeegsan doonta aad ku eegi doontana waxay noqon doonaan browser oo maxaa tahay browser wax kale ma aha yaanan idin wareerin browser waxa weeye Google Chrome Firefox iyo Internet Explorer waa meeshaad markaad internetka isticmaalayso aad serverlada doonaysa aad ka codsato haddaad Facebook aad galayso waa meeshaad request-ka aad ka dirto marka waxaas browsers la yiraahdaa browseradu way badan yihiin laakiin kuwa maanta la isticmaalay inta badan waa Google Chrome iyo Firefox iyo Internet Explorer waliba marka laga hadlayo wadankeena hooyo Soomaaliya sida awgeed waxaan isleegi doonaa qaabka loo qoro HTML boqolkiiba 90 waxa weeye fundamentalka waa basic-ga waa halka ugu muhiimsan ee aad la jaan qaadi karto luqadan waxa lagu horeysiiyaa doc type markaad qorayso HTML waxay ku sheegaysaa wax kala ma aha line-kan ugu horeeya wuxuu ku sheegayaa version-ka aad isticmaalaysa HTML version-no badan baa jira version-kan aad isticmaalayso ayuunbuu ku sharaxayaa line-ka ugu horeeya imika waxaa la isticmaalaa version 5 marka HTML 5 baa la isticmaalaa line-ka ku xiga kale waa HTML waa bilowga furitaanka qayaxitaanka HTML-ka waxa weeye shaqadaadii aad qabanaysay meeshii ka bilaabmaysay head haddaan usoo noqono waa bilowga furitaanka madaxa bogga title haddaan ku xigsiiyo title wax kale ma aha waa furitaanka ciwaanka bogga haddaan title iyo head aan idin yara kala tuso iminka haddaad arkaysa Facebook baan dul jooga halkaas sare ee aan ku hayo mouse-ka waxa weeye title-ka page-ka haddaad website kala gasho Google haddaad gasho halka Google baa ku qormanaya haddaad gasho website kale news aad akhrinayso halkan uu magaciisa ku qormanaya marka title wax kale laguma jeedo waxa weeye magaca xagga kaaga soo baxaya halka head uu yahayna waa furitaanka bogga Facebook aad arkayso sida awgeed xagga waan isla garanay baan u maleynayaa HTML aad arkayso ee furitaanka bogga ah wuxuu u baahan yahay in la xidho waayo system baa jira la isticmaalo HTML-ka wuxuu leeyahay open iyo close marka
kaas halkaas ka furan ee html-ka aad ku bilowday halkaas ayuu ka xidhmanaya xidhitaankiisuna waa slashta aad arkayso bodiga aad arkayso kale isaguna waa ka furitaankiisu xidhitaankiisuna waa kan bodigana wax kala ma aha bodiga waxa weeye waa bilowga bogga waa meesha wax lagu qoro haddaan bodiga si toosaan idiin tuso waa halkan ama website-kan anigu aan leeyahay bodiga waa kan baad oran kartaa halkan qoraalada lagu gudbiyo dadka ee aad ku sharaxayso waxyaabaha ama badeecadad ma garanaysaa soo bandhigayso marka haddaan ku noqono cashirkeeni bodigii waan isla fahanay head one wax kala ma aha waxa weeye qoraalkaaga qaybta koowaad ee aad doonayso inaad dadka aad ka iibiso ama aad tusto halkan oo kale head one wuxuu noqon karaa kan oo kale noqon karaa marka head one wax kale ma sheegayo waa sizeska farta iyaga waan gaadhi doonaa sidoo kale waxaan isleegi doonaa paragraphkuna waa paragraphkii aan isla garanaynay ee ah paragraphka ciwaanka uu leeyahay marka waxaan doonaya inaad ila ogaataan inta aanan basiga aanan dhaafin shay kasta oo html-ka aad dalbato ama aad qorto wuxuu leeyahay closing iyo open inta badan marka html closingkeedu waa kaa head haddaad aragto haddaad doonaysa closingkeedu waa kaas marka titleka halkee lagu qoraa waa headka ayaa lagu qoraa oo ad arkaysa headkii furitaankiisa openkiisi waa kaa closingkiisina waa kaa bodigii openkiisu waa kaa closingkiisu waa kaa intaa udhexaysana maxaa ku qoran waa paragraphkii iyo head one-kii marka waxyaabahaasoo dhan waan master garayn doonaa waan isleegi doonaa laakiin concept good oo aada u fiican ayaan doonayaa inaad ila ogaato waxyaabahan la adeegsanayo su-aashu laakiin waxa weeye waxaan aad arkaysa ee website-dada laga sameeyo markaad doonayso inaad website samayso maxay uga muuqan waayeen ma muuqanayaan waxaan laakiin qoraalkaad ku qorto ayaa ku muuqanaya ha ka werwerin html iyo headkan iyo waxaan aad arkaysa kuma muuqanayaan waxaa kuu soo baxaya sida website-kan oo kale website-kan aad arkayso wuxuu ku jiraa 20ka website ee adduunka sanadadii ugu dambeeyay kaalimaha koowaad u galay haddaan isla eegno isagoo kale waa website si fiican loo sameeyey dad experta ayaa sameeyey shaqoolahan oo kale aan furanaynaa shaqoola waa company shaqoolaha crispy la yiraahdo ayaa iskale haddaad doonaysa inaad furato waxaad taabanaysa halkaa waa kuu furmanaya yacni waxaan doonayaa teknolojiyadda heerkii maraysa inaan idin sheego oo aan idin iraahdo soomaaliya waxaan u baahanay inaan horumarno oo aanu dadkan ma garanaysa adduunka la tartamayaan ka mid noqono kaliba website-ku qaybo badan buu leeyahay qaybaha badan siyaabo kala duwan baa loo sameeyey waa wuxuu ku qaatay kaalimaha tiyo loo eegayo contactka lagu sii qoray website-ka iyo ereyada la adeegsaday marka waad arkaysaa shaqoolaha inta badan Africa ayaa laga qaataa marka dadkii Afrikaanka leeyihiin waa inaanu ka faa'iideysano waa inaan iyaguna horumar aan gaarsiinaa ereyo fiican bay kolleyba qoreen iyaguna sidoo kale website-kan aad arkayso kale isaguna waa website nimanka iyo waxaas lagu ciyaaraa waxyaabo badan oo qabta dadku markay stress iyo waxa aadaysan yihiin ay iska kaxaystaan gaarigan marka waxyaabahan iska jiiraan oo way ku cadha burburaan iyo shaqooyin kale badan buu qabtaa kolleyba website-kan xitaa gaariga home buu leeyahay inaad maqlaysaan bay la tahay marka teknolojiyadda heerkaasi maraysa waxaan u baahanay inaan la soconno oo aanu ka daba tagno adduunkan aan ka yara hadhnay aad moodo waqtiyadii aan dagaalada ku jeednay marka html area ugu horeeya ayaan idinka siinayay oo waa introduction-kii kani laakiin markaan dhammayno videogan waxyaabaha ku xiga waxay noqon doonaan si toos ayaan u dhexgeli doonaa waxaan sidoo kale ma garanaysaa aanu bilaawi doonaa markaan dhammayno koorasyadii kale aan idiin sheegnay ee css iyo javascript iyo html aan dhammayn doono oo maanta xalqadiisii koobaad ay noo tahay halkan waxaa inagu qoran sidoo kale what tools do web designers and web developers use toolasha ay isticmaalaan web designerska iyo developersku maxay yihiin wax kale ma isticmaalaan web developersku work with programming languages like HTML, CSS and JavaScript to create websites and web applications waxay isticmaalaan JavaScript, HTML, CSS si ay u create garayaan website-dada ayuu ku leeyahay iyo web applications-ka
marka developersku inta badan waxay isticmaalaan bu halkan kalena kugu leeyahay text editors. Text editorsku wax kale ma aha, waa waxyaa meelaha lagu qoro luqadan aan ku sheegayo. qoraalkan aad arkayso waa meelaha lagu qoro. marka waxa jira text editors badan, waxa kamid ah Node++, brackets way badan yihiin, Atom way badan yihiin. iyagana waan isleegi doonaa oo kan choruskan aan bilawnay adeegsan doono one idin soo bandhigi doona, ama waxaan adeegsan doonaa 3 ama 2 si aad ula qabsataan mid kasta, anigoo eegi doono kuwa inta badan la isticmaalo. marka halkanna waxaan ku haysanaa concept aad u guud oo aad u fiican oo inoo noqon doona introduction aad u muhiim ah, maadaama ay dad badan aanay ka hadal mawduucan sidaan aan soo bandhigay. marka waxaan isla eegi doonaa oo aan fikir guudna idinka sii doonaa mushaharada la qaato. mushaharada lagu qaato web developerka iyo web designerka waa mushahara aad u badan runtii, waa 50,000 iyo wax ka sareeya, inkastoo ay tahay markasta bi'ada aad ku dhex jirto wadankaada aad joogto iyo salariyada laga bixiyo. laakiin wadanada reer galbeedka inta badan lacag aad u badan baa lagu bixiya, inkastoo imaka meel dhaxal isugu yimaaday oo online lagu shaqeysto. online kaas aad ma garanaysaa saacadii aad oran karto $50 baan ku shaqeynaya, $10 baan ku shaqeynaya, waxay ku xidhan tahay CV-gaaga inta mashruuca aad soo qaadatay. marka waa waxyaabaha ugu fiican ee maanta loo baahan yahay dunida. maxaa yeelay dunidii way kasii tagaysaa wax marketingkii hore loo sameyn jiray inaad ila aragteen ayaan u malaynayaa, oo imika wax kasta internetka ayaa wax kasta lagu socodsiiyaa. marka dukaan kasta wuxuu yeelanayaa oo xaafadaha xitaa ku yaalay website ama meel uu badeecadiisa kusii socodsiiyo si online ah. marka waxaan doonayaa inaan isla eegno web developer iyo web designerku maxay kala yihiin. haddaan tusaale idinka siiyo, waa 2 takhasus oo kala duwan, 2 lacagood oo kala duwanna waa lagu sameeyaa. laakiin web developmentka oo kale waxa weeye waa sidii adigoo aqal dhisaya. aqalkii saan tusaale hore idinku soo siiyey, aqalku wuxuu u baahan yahay qalabo kala duwan oo lagu kiciyo. haddii jaajuur noqoto, haddii kaariyoon noqoto, shaqaale gelaya, sibid, biyo. marka shaqada noocaasa waxaan oran karnaa waxaa handal gareynaya oo gacanta ku heynaya nin kusoo takhasusay ayaa u noqonaya mas-uul. ninkaasi wuxuu noqonayaa ninka engineerka ah ee civil engineering soo dhigtay, halka web designerku uu yahay ninka rinjiyeynaya ee quruxda aqalkan ilaalinaya. waxaan oran karnaa isagana inuu yahay architecture. marka isagu madax xanuunkiisu waxa weeye inuu aqalka qurxiyo, uu rinjiyeeyo, uu hagaajiyo aqalka design ka duwan designada wadanada kale ama design kale loo yimaado inuu ka shaqeeyo. marka waxaan u maraynayaa 2 eri oo aad u muhiima, dadkuna ay ku wareeraan inaan faham aad u fiican aan ka haysano oo real life ah. sidoo kale waxaan isku dayi doonaa inaan concept kale idinka siiyo. halkan waad arkaysaa web designerku, waad aragtaa waxyaabihiisi waxa ku sawirayay iyo qurxitaankiisii iyo wax kasta waa wata, halka kan kalena uu yahay kii ma garanaysaa kicinayay aqalka. marka concept-kan aan siinayo waa introduction ayuu yahay casharkeena aan bilaawi doona HTML kaasoo noqon doona ma garanaysaa casharka koobaad ee introduction-ka u ah HTML. waxaan sidoo kale aan geli doonaa casharadii live practical-ka ahaa, taasoo aan idiin soo bandhigi doono maalin kasta qaybaha ugu muhiimsan oo aan isku dayi doono inaan ku dhameeyo si degdega si aan u galno casharaanta kale ee ku xiga. sidaa awgeed waxaan doonayaa inaad asxaabta u share garaysaan, inagu taageertaana like iyo share si channelkeena u koro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.